Madaxweynaha waddanka Croatia Zoran Milanovic ayaa u soo jeediyay dhigiisa Mareykanka Donald Trump in uu il gaar ah ku eego jasiiradda Svalbard ee dalka Norway halkii uu ku mashquuli lahaa jasiiradda Greenland. Waxa uuna hogaamiyaha ka tirsan Midowga Yurub iyo gaashaanbuurta NATO ee Croatia hogaamiye sheegay in jasiiradda Svalbard ay tahay mid istiraatiiji ah marka loo eego Greenland maadaama ay tahay jasiirad wada baraf ah oo uusan barafkeedu dhalaalin, halka Svalbard oo sharci ahaan hoos tagta dalka Norway ay tahay jasiirad uu ka buuxo kheyraad badan sidoo kalena istiraatiiji ah, badeeduna aysan baraf lahayn kuna dhammaato badeeda khaliijka Streamka oo sidoo kale bariga wax yar ka xigta Greenland oo uu Mareykanku ku mashquulsan yahay. Wuxuuna intaa ku daray in uusan malaynaynin in Greenland wax faa'iido iyo nacfi ah ay u leedahay Mareykanka xitaa marka laga hadlayo amnigiisa qaranka ay u wanaagsan tahay jasiiradda Norway hoos tagto ee Svalbard. Wuxuuna intaa ku daray in Mareykanka uu hadda si fiican indhihiisa u kala furo oo uu mar kale eego jasiiradaha khariiradahooda, isaga oo sheegay in il gaar ah oo aad u qoto dheer uu ku eego jasiiraddan Svalbard ee sharci ahaan hoos tagta Norway. Wuxuuna ugu baaqay Mareykanka iyo Donald Trump in jasiiraddani ay la wareegaan oo ay tahay meel istiraatiiji ah marka loo eego kheyraadka, amniga iyo xasiloonida Mareykanka sida uu hadalka u dhigay. Wuxuuna sheegay in Svalbard uu taageersan yahay in ay qaataan Mareykanka halka uu sheegay in uu kasoo horjeedo in Greenland uu Mareykanku qaato. Xogeyaha wasaaradda arrimaha dibadda dalka Norway Eivind Peterson ayaa u jawaabay madaxweynaha Croatia isaga oo sheegay in Svalbard ay tahay boqolkiiba boqol dalka Norway ayna la mid tahay deegaanada kale ee dalka Norway. Wuxuuna intaa ku daray in aysan la mid ahayn Greenland oo aan lala barbardhigi karin maadaama Svalbard ay tahay meel ay Norway boqolkiiba boqol leedahay kana mid ah deegaanada iyo gobolada dalka Norway. Wuxuuna intaa ku daray in ammaanka gobolada ama deegaanada waqooyi ee dalka Norway iyo Svalbard ay tahay mid muhiimad gaar ah u leh amniga iyo istiraatiijiyadda dalka Norway, xasiloonidoodana ay ka shaqeynayaan sidoo kalena ay ilaashanayaan kheyraadka dhex eegaaga jasiiraddan ayna sidoo kale kaashanayaan xulafadooda markasta, isaga oo sheegay Svalbard in aanan damac la gelin karin oo ay tahay Norweji boqolkiiba boqol. Wuxuuna intaa ku daray in ay 100 sano oo khibrad iyo waayo aragnimo ah u leeyihiin la macaamilka iyo joogitaanka Midowga Sofiyeeti iyo Ruushka ee jasiiradaha ku xeeran Svalbard ee uu Ruushku maamulo. Arrintan ayaa waxa ay dad badan ku noqotay layaab iyo fajiciso maadaama mid ka mid ah madaxweynayaasha wadamada gaashaanbuurta NATO iyo Midowga Yurub uu soo jeediyay in laga leexdo jasiiradda Denmark ee Greenland loona soo jeesto jasiiradda Svalbard oo Mareykanku xoog iyo xeelad mid doonaba uu kula wareego. Halka warkiisa ugu doorkaroon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.